asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo ka joogtiin dunida iyo daafeeda magacaygu waa axmed faarax halkaa nagala socotiina waa himila media production sidoo kale himila high school saaxiibayaal kusoo dhawaada cashirkii tobanaad ee softwareka lagu magacaabo photoshop haddaba cashirkeena tobanaad waxaynu ku baran doonaa diilaydma si loo sameeyo sawirada testaraha haddii aan si kale kuu fahansiiyana inta badan sawirada loo isticmaalaa baasaboorada iyo idhikaarada inta badan sawirada testaraha la yidhaho waa sawirada nuucan haddaba waxaan arki doonaa maanta insha allah si loo sameeyo sawirada nuucan ugu horreyn waxaan soo furi doonaa softwareka lagu magacaabo photoshop markaan soo furno oo halkaan imaana kadib waxaan dhihi doonaa control plus n ayaan dhihi doonaa aniga waxaan qaadanaa cabirka A4 ayaa qaadanaa sidoo kale waxaa leeyahay joog ayaa magaca projectiga ayaa halkaas ku qoraysaa aniga tusaale ahaan hadda waxaa iska leeyahay tester oo kale iska leeyahay tester in markaas samey kadib waxaa leeyahay okay haddii aad marka intaad okay dhihin kahor haddii aad sawirkan inaad daabacdid oo aad printin marsiinid waxaad dooranaysaa halkan ayaa soo furaysaa color mode hoosteeda kadibna waxaad dooranaysaa CMYK color laakiin aniga haddeertaan waa iska design oo inaan iska soo bandhigo ayaan rabaa RGB color ayaa u dhisnaa laakiin dambaa sawirada tester waa sawirada daabace xasuusnaa inaad dooratid CMYK color hagaag saaxiibayaal marka aan sameeyo kadib waxaa leeyahay create markaa yiraahdo waxaan suga doonaa insha allah inta ay soo furmayso warqada markay soo furto kadib waxaan dhihi doonaa control plus o ayaan dhihi doonaa oo waxaa halkan soo geli doonaa sawirkii aniga sawirka wuxuu ugu jiraa halkan qaybtan ayuu ugu jiraa sawirka testera halkan ayaa maaragtay ka soo qaadana si lamid ah saaxiibayaal sawirka waxaan soo dhigi doonaa groupka halkaas maaragtay ardayda telegram kala socota cashirta oo online-ka groupka ayaan soo dhigi doonaa halkaas ka qaata sawirka markuu halkan ii yaallo waxaan ku samayn doonaa waxa la yiraahdo cropping si aan cropping ugu sameeyo waxaan tagaa halkaas calaamada dusheeda ayaa tagaa halkaas markaad waxaa ujeedaa crop tool inay ku qoran tahay halkaas ayaad click siinaysaa kadibna dhinacan ayaa soo jiidaysaa waxaa imaanaysaa sawirka garabkiisaas qaybtan kale ayadan soo qabanaysaa waxaad imaanaysaa garabkaas kale ee sawirka ayaad imaanaysaa labadaas garab markii aad imaatid oo sawirka xarabna hadhowtid in uu sawir isleeg oo noqdo sidaasoo kale ayaan ka dhigayna haddii aad korayna wax kasoo jartid waad kasoo jaraysaa laakiin aniga hadda uma baahni inaan kor wax kasoo jaro kadibna waxaa saari doonaa check waxaa sii doonaa click ayaa sii doonaa sawirka hadda sidaan ayuu ii noqday sidaa ujeedidba waxaad moodaa xoogaa weli geeskan inay wax ku jiraan isla karoobta ayaan ku noqonaa oo mar kale aan click siinaa kadibna waxaa waaye xoogaa geeskan sidaas ayaa maarata ugu soo dhawaana ayadana check ayaa markale saaraa saaxiib aan ujeedin hadda sawirkii waa uu ii jaran yahay ama karoobin ayuu yahay waxaa samayn doonaa markaa sawirkan waa qaada si aan sawirka u qaado qaybtan move toolka ayaan click siinaa oo waxaa iska reebi doonaa sawirka hadda marka waxaa sameynaa sawirka dushiisa tagaa kilik ayaa siinaya kadibna saas ayaa u jiidaysaa saas markaa u jiidid kadibna waxaa lagu leeyahay ma doonaysaa inaad sawirka ka saartid layerka waxaa leedahay convert to normal layer okay ayaa leedahay halkaas convert ayaa ku dhufanaysaa kadibna waxaa ujeedaa sawirka waa kana waxaad deerta sawirkii waad qaadi kartaa meeshii aad rabtid waa gey kartaa waxaan dul tegi doonaa warqadii A4 waan soo furtaa kusoo qoray tester ayada dusheeda ayaan sawirka kaas ugu sii day doonaa kadibna waxaa dhihi doonaa control plus T sawirka waa select garay doonaa shift iyo alt ayaa isla qabanay si isla mid ah sawirka ugu jiido xoogaa sawirka waa soo jiidaysaa halkaasoo kale ayaad keenaysaa haddaba saaxiibayaal halkan waxaa rabaa inaan saaro stroke sababta waxaa la rabaa sawirka markii hadhowti la jaraa oo maqaska lagu jaraa in sawirka strogiisa la raaca sida hadda kanoo kale kan hadhowti markii la jaraa qaybta strogaas ayaa maqaska hadhowti la raacina oo sawirka wax saameyna kuma ay yeela doonto si aad markaa strogas aa u sameydid waxaan u noqonaynaa designkeena sawirkan ayaa u noqonaynaa sawirka saatan uu yahay asaga sawirka saan ku waxaa soo furaysaa halkaas window ku qoran tahay kadibna waxaa ka dooranaysaa layers markaa ka dooratid waxaad dul tagaysaa sawirka kadibna halkaas FX ku qoranta ayaa ku dhufanaysaa kadibna halka waxaa ka dooranaysaa stroke markaa ku dhufatid waxaa ujeedaa automatically sawirka wuxuu qaatay stroke haddii aad rabtid markaa inaad badidid halkan ayaad ka badinaysaa hadda wuxuu yahay 4 waa ujeedaa haddii aan ka dhigo 8 oo kale saas u sii badanaa haddii aan ka dhigo 80 saas u sii badanaa marka hadba cabirka aad stroke ay ku xirtaan inta badan waxaa isticmaalaa 3 ilaa 4 ayaa isticmaalaa hadda marka waxaa ka dhiga doonaa 4 ayaa ka dhiga doonaa oo stroke inuu saas inuu qoyaan halkan haddii aad rabtid positionka inside iyo outside labadaba mid aad rabtid adiga ayaa dooranaa haddii aad rabtid mid central ayaa dooranaysaa laakiin aniga inta badan waxaa isticmaalaa inside adigana waxaa kugula talina inaad inside ka isticmaashid oo waxaa rabaa stroke inuu sawirka xoogaa gadaal uu ka maro intaa markaa sameeyey oo sawirka stroke saaraya waxaan leeyahay okay ayaan leeyahay okay markaa idhaha saaxiibayaal waxaa samayn doonaa xoogaa sawirkan control T ayaan leeyahay waxaa qabanaa alt keliya markaa qabto xoogaa dhinacan ayaa maaragtay sidaas usoo yareynaa sidaasoo kale ayaan maaragtay sawirka dhigaa haddii uu kula falxumaadana control sida ayaa leeyahay sawirka kugu soo noqdo booskiisi hadda waxaan sameynaa markaa sawirkan waxaa ka sameynaa copy si aan copy ugu sameeyo waxaan dhihi doonaa control plus J ayaan dhihi doonaa control J markaa yiraahdo sawir kale ayaan geeskiisa dhigi doonaa xogaa labada sawir sidaas ayaa maaragtay u kala sikanaysa hadda waxaa ujeedaa labadan sawir way isleeyihiin wayna isleeyihiin inta badan testera waxaa la isticmaalaa 4 sawir ilaa 6 sawir ayaa la isticmaalaa waxaa samayn doonaa markaa labadooda ayaa select gareynaa oo select gareynaa kadibna waxaa leeyahay control T markaa yiraahdo kadibna waxaa isla qabanaa shift iyo alt
xogaa waxaa rabaa marka inaad sawirka saas u soo yareeyo sidaas ayaa maarata u soo yareynaa saas markaa u soo yareeyo saaxiib waxaa samayn doonaa kadibna waxaa saari doonaa jeegta oo halkaas ayaa maarata jeegta saas u saari doonaa kadibna waxaa samayn doonaa labadooda iyagoo sida control j ayaan dhihi doonaa koobi kale ha layga samey ayaan dhihi doonaa laba kale ayaa laga samey sidaa ujeedid taas ayaa u qaadaa kadibna waxaa dhihi doonaa mar kale control j ayaan dhihi doonaa koobi kale ayaa ka sameynaa kadibna sidaas ayaa maarata usii qaada haddaba inta markii aan sameeyey waxaan sameynaa marka guud ahaantood sawiradan waa salag garaynaa guud ahaantood sidaan ayaa maarata u salag dooraa kadibna waxaa leeyahay control t markaa yidhahdo waa qaadaha halkaas bartanka ayaan geynaa hadhowdi markaa meesha waxaa igu soo daawacmaa 6 sawir ayaa maarata sidaas ay ugu daawacmayso qoladii kuu soo dirta 4 sawir ayay kaaga baahanaysaa 2 sawirna waxay kuu noqonaysaa kayd oo halkaas ayay kugu jiraysaa saaxiibada sawirada testara sidan ayaa loo sameeyaa marka haddii aad rabtid inaad save garaysid si sahlan ayaa ku save garaysan kartaa oo waxaad tegaysaa halkaas ugu qoran tahay file kadibna waxaad ka dooranaysaa save as kadibna save as markaad doorato halkan waxaad kasoo dooranaysaa save on your computer ayaad dooranaysaa kadibna halkan ayaa soo furaysaa oo waxaad dooranaysaa jpeg halkaas ay kugu qoran tahay jpeg gbn halka kugu qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa kadibna halka waxaad soo dooranaysaa locationka lagu dhigaa sawirka aniga waxaa dhahaa desktopka haliska dhigo ayaan dhihi doonaa laakiin waxaa hore igu yaalla sawirka hore ee ku qoran desktopka tester ee ku qoran ee igu yaallo kan waxaa ku ekeenaa test bisa ku ekeenaa kadibna waxaan dhihi doonaa save ayaan dhihi doonaa save markaa yidhaahdo quality-ga sawirku waa inuu 100% sawirka inuu kusoo baxo resolution-kiisa uu nadiif ku noqdo inta badan waxaa la isticmaalaa quality 8 ayaa la isticmaalaa si uu high quality kugu noqdo kadibna waxaad tiraahdaa okay hadda marka waxaan tegaynaa desktopka waa tanaa test sawirka inoogu qornay test waa kana keeni horeeta testari horeetana waa kana hadda waxaa ujeedaa marka testna waa kana testari horeetana waa kana wax farqiya uma egnahay saaxiib waxaan filayaa inaad si fiican u fahanteen si loo sameeyo sawirada testerana haddii ay jirto wax su'aalaha qabtina qaybta hoose comment gula soo wadaaga tirinta gaar doona casharka xigana waa dhammaantoona dhammaantiin leh isma dhaafno